hadday diidaan sanduuqu ku ansixi doonaa gobolkani indhahoodo shan ah ayuu gobolkani ansixi doonaa waynaynu arki doonaa siyaasad baynaynu ku hirgelinaa biidnillahi tacaala. halkani waa magaalada Gabiley isla markaasina waxaa lagu soo dhaweynayaa mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga kulmiye oo horkacayo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed. markii uu soo gaaray magaalada Gabiley ayaa waxa isqabsaday buuqa sawaxanka halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen dadweyne aad u tiro badan. ugu dambeyntii waxa ay kala hadleen meel fagaara oo loo diyaar gareeyay xisbiga kulmiye dadweynihii gobolka Gabiley ee halkaas ku soo dhaweeyay waxana hadaladoodii kamid ahaa. dadweynaha reer Gabiley ee taageerayaasha xisbiga kulmiye shabaayirta maanta halkan isugu timid gacmo furan walaalayaal ku soo dhawaada gobolka Gabiley baa idin soo dhaweynaya anigoo ku hadlaya afkiya bulshada dhammaanteed waan idin soo dhaweynaynaa si kan iyo laba baan idin soo dhaweynaynaa qalbi furan baan idin soo dhaweynaynaa kalgacayl baan idin soo dhaweynaynaa saacadda wasiir waad mudan tahay maanta gobolka Gabiley lagu soo dhaweeyo waxa tahay wasiirkii u bareeray in gobolka Gabiley la geeyo golaha wakiilada golaha wasiirada la geeyo madaxweynuhu asixiyo gobolka Gabiley ammaan baa kuu taala taariikh baa kuu taala tii daahir riyaale markii bixiyey u taallay tulamida kuu taala aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa waxaan halkan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan shacabkii gobolka Gabiley waxaanu ka cudur daaraanaa shacabkaasi oo maanta cadceedda taagnaa 3 saacadood ee u dambeeyey inaanaan dad badan oo mudan inay halkan ka hadlaan aanaan kelmada siinin hadday tahay madaxda dhaqanka ee kala duwan. halkan waxaa jooga dadweynihii gobolka Gabiley oo u diyaara xisbigoodii kulmiye mudane gudoomiye gobolka Gabiley xisbiga kulmiye way isleeyihiin soo sidaa maaha soo kulmiye diyaar ma yihiin maxaynu leenahay xisbiga aqoonsiga xisbiga horumarka xisbiga midnimada ha jiro ha joogo doorashooyinkii waxaynu u taaganahay ama muhiimadeenu ay tahay waa barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen kulmiye kuma sultana inuu dhacay wuxuu ku sultan yahay mar walba inuu guusha dhaliyo kursiga isagu mar walba hanto waxaynu leenahay kulmiye ha guulaysto kulmiye ha guulaysto kulmiye ha guulaysto kulmiye ha guulaysto maanta taariikhda ay ku sugan tahay Gabiley waxa weeyaan xuduntii xisbiga kulmiye oo ah udubdhaxaadka xisbiga kulmiye murashaxeena madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi iyo murashaxeena madaxweyne ku-xigeen mudane Maxamuud Saciid Maxamuud Sacad Saajin labadaba way guulaysan doonaan soo maaha ilaahay idinkiisa soo maaha walaalayaal gobolka Gabiley oo hirgelaya inaan gobolnimadiisa ilaahay u barino waan hirgelay xukuumadda way ka soo dhamaatay Maxamed Kaahin abaal buu ku leeyahay xildhibaanada gobolka abaal bay ku leeyihiin madaxda dhaqanka oo ugu horeeya Suldaan Ismaaciil doorkii loo baahnaa bay ka qaateen dhammaan gobolka looma kala harin cidase lugta jiidaysa ee doonaysa diidan waynu galanaynaa soo maaha gobolka Gabiley cidda la dagaalamaysa diidan ma galanaynaa mise ma galanayno min ragii uu galanaya naasta loo sheegi maayo gobolka Gabiley meel bay ugu qoran tahay waxa ay xaq hadday diidaan sanduuqu ku ansixi doonaa gobolkani indhahoodo shan ah ayuu gobolkani ansixi doonaa waynaynu arki doonaa siyaasad baynaynu ku hirgelinaa biidnillahi tacaala waxaynu leenahay wanaag ku hirgeliya hor soo koobi kara guud ahaan dalka sidii xisbiga kulmiye looga soo dhaweeyey waana kalsoonida ay shacbigu ku qabaan xisbigooda dalka maanta taladiisa haya ee laga soo bilaabo 2010kii ilaa maanta oo marna 2024kii talada dalka haya waxaa horumar dalka ka muuqda waxaa hirgeliyey xisbiga kulmiye gobolka Gabiley ilaa wasiirada u baahnaa shaqadiisa gobolka Gabiley laba bariyo qof wax loo bariyo ma gobolka Gabiley wuxuu leeyahay waxa uu gobol xeelna u baahan wuxuu leeyahay wax soo saar wuxuu leeyahay barnaamijyo farqo wuxuu leeyahay in fiican waxa xaq buu leeyahay oo xaqiisa wadaniga gobolka Gabiley waxa leeyahay maraykanka
gobolka ohio waa lagu farxaa inta ohio ay raacdo uga madaxweynaha weynka inta gebina ay raacdo uga noqoto markaa madaxweynaha soomaaliya annagoo waxaan ugu soo geli doonaa ohio kale hawdal labada ohio ka farxaan alxamdulilah gobolka wuxuu ahaa inta soo soomaaliya dhamin hadalkii muddada dheeraad ka soo qayb gashay hadda wuxuu ahaa gobolladii sida gaara ugu sultanaa muddadii dheerada hadda kale ka socotay faraha badan u soo marnay waxaynu halkan dheer u soo marnay waxaynu doonaynaa qarannimadeennu inay taabaqayso waxaynu doonaynaa qaran la aqoonsan yahay oo caalamweynaha ka tirsan inaynu noqonno si aynu taa u noqonno waxaynu doonaynaa horumarka nabadgelyada qaranimada inay gamuwey iyo kuwa kale gobollada kalabaa ku sutanaadaan gobolka gamuwey dastuur ahaan qaran ahaan ayuu dal u istaagiraa in xeerarka iyo sharciyadda dalka la waafajiyo oo ka mid noqdo gobollada dalka ee ku ansaxsan dastuur waa cabdisalaan maxamed bade bulsha t v gabiley u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg app store iyo play store abka dahabalaas maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121